gorgor waa mid ka mid ah ciidamada ugu awoodda badan ee dalkeena ka dhisan waana ciidan military oo ka tirsan commandoska dalkeena waxa ay tababar ka heleen Turkida waxaana ay awood u leeyihiin inay u duulaan sida gorgorka oo kale marka ay ku jiraan howlgallada xarada Turkisom oo ku taala Muqdisho isla markaasina xarada ugu weyn ee Turkiga ay ku leeyihiin dalka baxsan dalkooda ayaa lagu baraa wadaniyada iyo daljacaylka waxaana uu qayb ka yahay arrinkan heshiis ay wada galeen dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya kaas oo dhigayay in dowladda Turkiga ay siiso tababar buuxa ciidankeena si loo soo celiyo quwadii ciidan ee dalkeena u lahaa sida uu sharaxayo General Inda Qarshe oo ah qabiir dhinaca ciidanka ah mudana ka shaqeynayay arrimaha ciidamada heshiiskaas qodobadiisa waxa ka mid ahaa in dowladda Turkiga ay noo tababarto saraakiil xigeen iyo dabley ka tirsan ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed isla markaasna noo qalabayso oo qalabkii ay ku dagaalami lahaayeen la siiyo waxa kaloo ka mid ahaa in la helo xarun dalka gudihiisa ku taala oo numberka anagu intaan rabno aan anagu ku tababarno haddaan rabno 10,000 haddaan rabno 100 200 wadaaba numberkii dalku baahida dalka uu qabo lagu tababari karo oo lagu tababaro waxa kaloo ka mid ahaa in qaybta caafimaadka oo badankooda aan inta lagu sameyn karin loo ogolaado saraakiil in dibadda lagu soo tababaro ay noo ogolaadaan oo kulliyadaha Turkiga lagu tababaro qalabaynta oo noocyo badan leh hubkii gaadiidkii warisgaarsiintii intaasoo nooc baa ka mid ahaa heshiiskaas dhismaheeda xerada waxaa la bilaabay 2015 waxayna dhamaatay 2017 mustaqbalkana ay noqon doonaan dadkii mustaqbalka ciidanka hogaamin lahaa sidaa ogsihiin adduunka laba doctrine baa jira Eastern doctrine iyo Western doctrine NATO doctrine baa leeyahay Turkigu waa wadan ka tirsan NATO tababarkoodu waa tababar aad u sareeya oo aad iyo aad level sare u ah waxayna nasiyaan tababar aad iyo aad u sareeya oo NATO standard ah bay saraakiisha iyo askartii kullu lagu tababaraa waa heer international caalami ah runtii waa wax mutaqaana mustaqbalka dalkan oo ay doono dadka Soomaalidu naturally waxay qabaan wax Ilaahay uu siiyay oo ayagu ay ku dhasheen oo ah in ay hanan karaan wax kasta oo la baro sida ay u tahay in ay u hanan karaan horay u muujiyeen ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed waa ogtihiin adduunka dhan bay caan ka yihiin askarteen iyo saraakiishan waa caynkaas muddadaas aniga aan joogay saraakiisha qaybihii ugu horeeyay baan la shaqeeyay saraakiil yar oo tababarku kala heer way oo heerka hoose ciidamada dhulka loo soo tababaray baan la shaqeeyay aad iyo aad baynu u heer sareeyeen aad iyo aad baynu u guteen and always waxay noqdeen dad mar kasta la xasuusto aqoon leh askariguna sarkaalka wuxuu aqbalaa oo amarkiisa qaata markuu dareemo aqoontiisa inuu sarkaalku inuu aqoon hogaamineed u leeyahay markaasuu aqbalaa ilaa hadda meelaha xukumaan aad iyo aad bay askartii saraakiilka raalli uga yihiin taasoo markhaati ka ah yani sarkaalkan inuu yahay sarkaal aqoon leh wax hogaamin kara wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya oo kaashanaysa amarka iyo talooyinka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa ay ku guuleysatay soo celinta quwadii ciidan ee dalkeena u lahaa inkastoo wali aan la gaarin halkii uu bartilmaameedka ahaa waxaana ciidanka qaranka Soomaaliya xilligan uu awood u leeyahay ilaalinta ammaanka dalka